بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا كسو دبادة channel keena hiba محمد أحبابي aad baan idin salaamay dhamaantiina meel walba oo dunida aad ka joogtiin khayr badan nimco marwaaqo baraaro ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisanaynaa in sha allahu tacaala. intaas kadib ilaahay idamkiis maanta mowduuceena ku saabsan yahay in sha allahu tacaala. horta in badan baanu kala maqnayn, الحمد لله هذا نصوص نقولنا إلهي باكم حسن سبحانه وتعالى. أنت اسكدي ما أنت موضوعنا إن شاء الله تعالى حكو سابسية وحويان قبلها رجوضة بالودلة مركان ليه قبلها رجوضة بالودلة يعني رجع بالود استعمال حاسس قوضة يا ما أنت حن أرونا يا وأنا يربح لك وسوي شيء دنيا ولا لي إلهي سبحانه وتعالى وحين لقدون أنا بني آدم هدينو نهاي هدي مشكلة إن الصو وجهه إلهي بمركا مقالنا بني آدم وحاليري ففروا إلى الله إلهي حقي سأو عرر هذا ربات الدريدين والود مركا ودب آدوين وعليس وحنون قفك مركا وحالدونا يا قبردا إن إلهي سبحانه وتعالى إنك هذا أبارده إلهي إنه بالودة كمذوبيه إلهي سبحانه وتعالى إنه محنك ورهذاي قلبي جيسة كترتره مرق حسمين يسا إلهي بدبريسا إلهي بدسكح ريسا أول مرة إلهي بدتوجا يسا سبحانه وتعالى وقريبه سدب أياد إلهي أبريسا مقرن يسا كو ورتا مركاد إلهي سبحانه وتعالى أدبريسنة وحويان إن قلبي جاجا يمسكح ذا ضبا هل دينعيني وجيدان oo ilaahay si dab ah wax u weydiisanaysid bariye warkistoon ilaahay bariyayno waxa wanaagsan inuu jismigeeni iyo qalbigeeniba uu xaadir yahay qulubta yani maskaxda iyo qalb kulli xaadir inuu aqli kulli yani anago dhamina xaadirnahay qalbigu inuu qaafil iska yahay oo jirkina xaadir yahay oo maskaxdii meel kale ay ka fikirayso dhinac kale ay u jeedo qalbigi meel kale uu jeedo jirkii oo kaligiisa inta iska fadhiyo aad wax iska bariyaysid macquul baaha ilaahay adigo rabbi subhanahu wa ta'ala waxaad u bariyaysaa kam ina adi arkaysid allah jalla wa ala yani ilaahay bad tamabaad ilaahay wad isku duleynaysaa oo bini aadam daciif ah ayaa tahay ma ogtahay وأنا اسكب بحساب ربي سبحانه وتعالى يعني سدب أو يعني سبحان الله إناد ما ركتي يعني إناد يعني سبحان الله إلهينا سدب كم إناد أديق إلهي أركيسيد يا رب مركي يعني عما كر وتاجيسيد قلبي قاقين حاضريها مسكح هذا إني حاضر تاي أديدن إناد جوكتيد إناد كلامك مقنين إناد حاضر تاي ده تنا أدهديد إلهو ninkayga ama sawjkaygaba yani shaygan marka aad ku dhibsanaysid uu isticmaalayo adiga garanaysid mogtahay sida qaadka oo kale waa wax xun sigaarka oo kale kadalik waa wax xun ilaahay baan ka magan galnay qofkana uu ku dhibsanayaa qofka markuu isticmaalayo mogtahay hadda adigu qof hagaagsan tahay hadda adigu qof ilaahay xaalkiis og yahay tahayna waxaas dhibsan maysid laakiin gabadhii ilaahayna taqaano rasuulkiisana garanayso oo shaygan og inuu shay xun yahay isaga caafimaadkiisana u daran tahay caafimaadkiisa yani uu dhibaato gaarsiinayo ee waqtigiisii uu ka luminayo gabadha garanaysana ninkeeda yani la rabto wanaag maalan taas way tan la hadlayo tan ayada geeska cunayso ma la hadloo yani gabadhaasaan la hadlaya gabdhahaasaan la hadlaya maalan ilaahay barya يعني إلهي كبري سبحانه وتعالى إنه سوج كذا كم ذوبيه شيء قصو استعماله قاصة سيجارك إيشات كذا وإنه قبتين قريها سدي عوس كما ركتي حولها عنايين وكلام بدك وصول لكتان مركز وحلو قصة مينا يا علمه يريرك هرتودي بقى لقول عنايا مقتها ما أنت مركز تاسع أنصو إيمانه علمه هرتا تنا مينو إلهي بري إلهي وحد كبري ذا يا الله يا كريم يا حكيم يا عليم
ilaahu soojkayga qalbigiisa ka madoogay shaygan leeday garanaysmaan jaadkan iyo sigaarkan iyo muqaadaraadkan yaa rabbi ilaahu ka madoobay ilaahu qalbigiisa ka tirtir ilaahu maskaxdiisa ka tirtir ilaahoyow ka caafi shaygan ilaahu ka madoobee ilaahu intuu jecel yahay oo intuu asaga yacni shaygan uu jecel yahay oo naceeb ah ilaahu yacni nacsii oo u ursii oo maxaan ku rahdaayey qalbigiisa ka saar oo qalbigiisa ka madoobee yaa oo maxaan ku rahdaa ilaahu salaada jeclaysii yacni u ducee muhiimadda waa in laysku duceeyaa labada dhinacba sax gabadhana waa inuu ninkeeda u duceeyo ninkana waa inuu xaaskiisa u duceeyo gabadhana waa inay ninkeeda yani laisku duceeyaa sax marka jaadka iyo sigaarka runtii aad bay inugu bateen hadda badkaba soo tagay hadda waxyaalo kalaaba iska jiraba badan oo ilaahay xaaraantimiyo hadda la sameeyo badan oo dadkii maaragtay ilaahay baan ka magan galnay jaadkii sigaarkaba caana ay noqonayaan ilaahayse ka magan galnay subxaana watacaala ubadkeenna walaaladeenna ehelkeenna intii qaraabo inala ah intii muslim ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka xifdiyo baan ilaahay ka baryaynaa subxaana tan labaad baryada ilaahayna lagama quusto ilaahay inaan aad u barino wax badan waayo hadda dhibaatadii baa badatay marka inaad ilaahay baridid waa muhiim jiddan adigay kuu fiicantahay ilaahay annaga nooma baahnay annaga u baahan waa xaqiiqda markii laga hadlo weeyaan rabbi annaga u baahan annagaa baahideennu badan tahay ilaahayna baahideenna wuu kaafinayaa laakiin muhiimadda lagaa rabo maxay tahay qalbi nadiif inaad la imaatid xaadir ah ilaahay subxaanahu watacaalana si dhaba u tuugaya ilaahayna si dhaba u baryaya yacni talabaad waa ilaahay inaad ogaatid inuu raxiim yahay subxaanahu watacaala rabbina uu deeqsi yahay rabbi waa deeqsi ilaahay waxaad ka barida waad ka helaysaa ilahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa inuu jannadiisa nagu irsaaqo naartiisa naga badbaadiyo ilaahay subxaana watacaala maalinta ifka uu naga wadanaya maalin wanaagsan ilaahay inuu ka dhigo yacni gafkeena iyo geerideena ilaahay inuusan kulminin biidni illaahi kariim ilaahayna naxariistiisa ayaa lagu janno tagaaye rabbi inuu naxariistiisa nagu irsaaqo oo naxariistiisa uu jannada inagu geeyo biidni illaahi kariim intii dhimatay waalidiinteenna ugu horeysana ilaahay subxaana watacaala qubuurtooda inuu ka dhigo roodatu min riyaadi aljanna biidni illaahi kariim intii dhimatay dhammaan ilaahay ha u naxariisto annagana ilaahay gadaashooda nama fitneeyo ilaahay naxariista jannada ha nagu irsaaqo ilaahay subxaana watacaalana camal waxa wanaagsan oon samaynayn ilaahay ha naga aqbalo ilaahay hana xifdiyo hanoo ilaaliyo allahuma aamiin khayr badan baa idin dhaafay ilma adeerayaal iyo wanaag ilma adeerayaal oo fiidiyowyada sheer gareeya oo la gareeya ilaahay ha idin xifdiyo oo gacmaha ka shaqaysiiya iyo like taasas u taabatid walaa lacag ma ahan oo magadoon yacni wax weyn ma ahan subxaan allah waa taabanaysaa oo keliya subscribe-ka waa un taabanaysaa like-ka waa yacni wax weyn ma ahan fiqsiga iyo qurunka iyo fasahaadkaba waad faafisiin oo meel fog baad gaarsiisiin ee dadka wanaagsan ee khayrka ka hadlaya yaa culumadaba ha ugu horeysee adna ajir baad ka helaysaa wanaag aad faafisay adna ajir baad ka helaysaa waxna kaama go-ayaan waxna kaama nuqsaamayaan marka waxaa idinku waaninayaa fiidiyowyada markii lasoo dhigo bilaa calaykum iska taabo meesha suulka unsaas u riix meesha gaduudka subscribe-ka ku qoran tahayna un taabo هذا سبسكرايب إيه أحين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.